Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan maanta ka hadlaynaa habka ama qaabka ee sawirka loo kalareeyo ama loo midabeeyo ama sawirka looga dhigo black and white. Marka hore sida caadiga ah waxaad soo kacsanaysaa sawirka. Kadib markaad intaas samayso waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay menu kore image. Kadib image waxaad ka dooranaysaa halka ay ku qoran tahay adjustments. Kadib waxaad ka dooranaysaa halka ay ku qoran tahay black and white. Click ayaad ku siinaysaa. Markaad click ku siiso wuxuu sawirka kaaga dhigayaa black and white saad u jeedo. Wuxuu sidoo kale kuu soo kicinayaa sanduuqan yar ee aad halkaan uga jeedid. Sanduuqan yar wuxuu kaa saacidayaa inaad customize ku samayso kalarada ama inaad badbedelato. Tusaale ahaan kalarkan markaan black and white ka dhigay wuxuu u muuqdaa mid iftiinkiisa ziyaada ah. Marka si aan u yareeyo waxaan yareynayaa iftiinka oo yellowga ah. Hadda wuxuu u muuqdaa iftiinka ziyaada ah waa uu yareeyay. Sidoo kale haddaad rabto in aad halkuu hadda ka yahay black inaad ka dhigato kalar kale ama midabo kale inaad ku aadisato waxaad click ku siinaysaa halka ay ku qoran tahay tint oo macnaheeda ah kalarey ama midabey. Click aad ku leedahay sax ayaad saaraysaa. Kadib saad u jeedo kalarka oo defaultiga caadiga ugu aadisan waa kalarkani. Si aad u bedelato waxaad ka bedeli kartaa halkan hoose ama sidoo kale waxaad ka bedeli kartaa kalarka ayaad click ku siinaysaa. Wuxuu kuu soo kicinayaa sanduuq kale yar oo kalara ah. Kadib kalarka aad rabto ayaad dooranaysaa. Haddii blue aad rabto ama yellow ama green kii adiga oo dooqaaga ayaad ka dhigan kartaa. Kadib waxaad leedahay okay. Laakiin aniga ahaan waxaan rabaa kaliya black and white inuu ii ahaado. Marka tintii waan ka qaadayaa. Iftiinka ayaan weli xoogaa ka yareynayaa. Markaad ku qanacdo kalarada iyo saad ka dhigatay kadib waxaad leedahay okay. Markaas aad u jeedo sawirka waa uu ku kalareeyay ama black and white ayuu kaaga dhigay. Marka sawirka sidii hore uu ahaa waa sidaan hadda ka dhiganay waa sidaan.